Assalaamu calaykum. Cuntooyinka aan marnaba habboonayn inaad cunto adoo baahan ama hamuuman waa mowduuca muuqaalka. Ku soo dhawow channel-ka Cilmi Bahshe. Inaad ogaato sida loo hagaajiyo dheefshiidka ma aha mid ka bilowda oo keliya inaad barato waxa aad rabto inaad cunto. Beddelkeed wuxuu ka bilowdaa inaad barato xilliga ay cunto walba ku habboon tahay inaad cunto. Biyaha qabow waynu wada jecelnahay, laakiin ma jecelin inay ku daataan firaashka aan ku hurudno. Waxaad dheefshiidkaaga dilaysaa in badan mar walba oo cunto khaldan aad cunto. Caloosha oo maran. Waxaa laga yaabaa inaad cunto wanaagsan oo dheellitiran aad cunayso, laakiin xilli khaldan aad daldalayso. Waxaa dhacda inaad aragto qof cambe cunaya oo haddana shaah cabaya isku mar aroortii. Dabcan calooshu maahan dukaan alaab kasta la isugu keeno. Si kastaba, cunto walba oo jirku u baahan yahay waxtar weyn u ah oo xilli wanaagsan aadan cunin, waxay ku doodsiiyaan waxtarkooda. Cunooyinkan marnaba yaysan gaarin caloosha oo maran ama adoo hamuuman. Cabitaanada ay ku badan tahay sonkorta sida kookada ood cabto adoo hamuuman waxay burburiyaan habka dheefshiidku u shaqeeyo, waxayna si tartiib tartiib ah u dilayaan caafimaadkaaga. Waxay cabitaanadan ku horseedayaan dhibaatooyin caafimaad oo ka yimaada wadnaha iyo xanuunka macaanka. Mar walba oo sonkor badan aad cabto, hormoonka insulin ayaa kor u kacaya. Waad maqashay wax walba oo kor aada way soo dhicin. Mar kasta oo sonkor daldasho, mar walba uu caafimaadkaagu isbiilanayo. Ka fogow inaad sonkor badan cabto, khaasatan markaad hamuuman tahay. Shaaha iyo qaxwaha. Qof walba wuu jecel yahay inuu cabo shaah ama qaxwo aroortii markuu soo kaco si uu indhaha u shito, maadaama ay ku siinayaan tamar. Sidoo kale lama aha saaxiib caloosha oo waa u daran yihiin caloosha. Waxay kuu horseedaan inaad maalintii oo dhan daaco wado. Ka hormari biyo caadi ah oo qandac ah. Yaanyada waxay ka mid tahay fruitiska waxtarka leh. Waxaa ku jira liddi-ku-ahyaal falgal antioxidants, laakiin markaad cunto adoo baahan waad ka shallayn doontaa. Waxaa iskhilaafaya biyaha ku jira yaanyada iyo shiidayaasha caloosha. Chocolate-ka iyo waxyaabaha ka samaysan burka iyo sonkorta sida keega. Inaad ku quraacato iyo chocolate waxay oola muuqataa qof wax qurxoon, laakiin xaqiiqda waxay ku horseedaan in gaas kugu dhaco. Haddaad horay u qabtana way kugu kicinayaan. Aad ayaad u mahadsantahay.